maanta oo taariikhdu ay tahay 6dii February 2021 aan joogo magaalada Samareeb uu yahay waxa aan ku jirnay shirkii Samareeb tiri 4 oo soo socday muddadii maalmihii dhaweeyay la soo dhaafay waxaan rabaa inaan marka hore wax yar oo hordhaca ka bixiyo marxaladihii aan soo marnay waxaan rabaa inaan sheego weliba inaan qaban doono shir ama kulan aan kaga hadli doono si faahfaahsan marxaladihii waddanku uu soo maray gaar ahaan Jubbaland iyo xaaladeedu halka ay soo martay doorashadii ka hor iyo kadibba laakiin waxaan tan rabaa inaan maanta ku soo koobo marxaladda taagan iyo sida ay ahayd waxaan isugu nimid Samareeb 2 madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaarihii hore iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxa aan kaga hadalay waxay ahayd in xal laga gaaro gobolka Gedo guddi loo saaro guddidaasi inta aan Samareeb 3 la isugu soo noqonin ay iyagu ka soo tala bixiyaan xal laga gaaro iyadoo markaa dowladdu ay ka shaqeynaysay ciidamo lagu daldalayo culaysyo badan oo la gaarsiinayay dadka iyo dhibaato dadka la dhex dhigayay muuqatayna inta ka horeysa shirka dambe intaanaan isugu imanin in tallaabo la qaado arrintaana madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxdii kaleba aanu ka wada hadalnay ma ayna dhicin Samareeb tiri ma aanaan imanin sababo jiray awgood oo arrintii xukuumaddii iyo waxyaalihii dhacay baa sababay wax tallaabo arrintaa laga qaada mayna jirin Sebtembar imaatinkii aanu nimid Muqdisho waxaan beesha caalamka iyo xukuumaddaba u sheegay inay igu adag tahay inaan shir ka qayb galo iyadoo dagaal uu ka taagan yahay gobolka Gedo maalintii garoonka aan kula kulmay beesha caalamka iyo xukuumadda ciddii aan ka arkay waxaan u sheegay culayska naga haysta shir inaan ka qayb galo xaaladda ka socota gobolka Gedana aanan mas-uuliyaddeeda qaadi karayn dood dheer ka bacdi waxaa ii soo baxday shirkaa inaan ka baaqdaayey inay caqabad ku tahay masiirka ummadda Soomaaliyeed waxay noqotay inaan u tanaasulo oo aan ogolaado inaan shirka ka qayb galo lagaga hadlayo arrinta doorashada iyo masiirka Soomaaliya inta shirkaasi uu socdana midda kale ee dhibaatada gudaheedeen markaa tirsanaynay ee Jubbaland ka jirta inaan gudaheeda ku shaqeyno inta ay maqnaayeen madaxdii kale aniga iyo madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo waanu kulannay waxaanu ku heshiinay inaan ka shaqeyno guddi saaro la soo ururiyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta taagan ee gobolka Gedo madaxweynuhu nin buu soo magacaabay ahaa taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin ana nin xildhibaana baan ku soo daray waxaan ku nidhi tala noo soo jeediya oo waxaad keentaan Geele Jaamac Mursal iyo Fahad Yaasiin tala ku eg xaaladdan wixii hadda laga qaban karayo waxay soo jeediyeen in la qabto guddi wada jir ah guddidaasi inay soo jeediyaan xal sidii looga gaari lahaa arrinta gobolka Gedo maamulkii sidii wax loogu qaban lahaa sidii dhibaatada taagan xalkeeda loo gaari lahaa oo dowladda federaalka iyo Jubbaland waxay isku haysay gobolka ku saabsan loo sameyn lahaa oo guddidaasi ay uga howlgeli lahayd muddo koobanna loo cayimi lahaa inay arrintaasi ku dhammaato waxba mayna ka dhicin madaxweynuhu isagaa ballantaa ka baxay shaqadii aan isku ogeyn oo dhanna dhinaca kale u rogay isagoo markaas waxyaalo aan munaasab ahayn ama aan madaxweynenimadiisa u qalmaynin ay noqotay waxa uu hadafka ka dhigay oo ay ahayd doodo ku saabsan arrinta Jubbaland iska daaya waxa caqabadu Gedo ma ahayn Kismaayo ka jirtaa isagoo xusay markaas waxyaalo aanan hadda inaan sheegay ay ceeb ugu tahay oo ay ka mid tahay reer iyo qabiil iyo Kismaayo iyo hogaamiye kooxeed iyo waxaana la isku hayaa iyo waxaana la isku hayaayo aan igula hadlin cod madaxweyne uu ka hadlayay wax si jufanimo ah ku saabsan taas waxay soo gaarsiisay inaan shirkii iraahdo haddaba kama qayb gelayo
saaxiibaday markaa markii hore madaxweynaha puntland baa nagula jiray dib u heshiisiinta iyo negotiationka aniga madaxweynaha naga dhexeeyey madaxweyne qoorqoor cabdicasiis waare iyo cumar finish yaa waxay qaateen marka weliba saddexda madaxweyneha kale intii hore idinka qoys u wada shirayo isla socday waxaan rabnaa inaad shirkana nala dhamayso hawshana aad nala qaadato oo kabacdi annagu aanu gallo waxaan ku iga daayay arrintaasi way adag tahay ninkaana nin u socdo ma ah waxaa dhacday markaa inaan sida ugu sharafta badan ee loo dhammayn karayo aan u dhammaynay isla qaadanay labada goobood sida loo qaybin iyo say noqonayso doorashadiina aan go-aankeedii 17 September sidaa ku gaarnay intaasi markay dhacday waxaan ka hadlay oo ka mid ah qeybta hadalkii aan ka hadlayey madaxweynuhu stateka dhexdiisa u taallaa siduu u qaybsanayo kuraastiisa ee labada magaalo ugu qaybinaya maadaysid maya buuro 2016 waa la qaybiyey idinku keena hadda soo yeedhin waan sheegnay waan dhammaynay waxay noqotay in nooc loo kala saaro gobolkii oo qabaa'ilada qaarkood oo labada meeloodba degaya la yidhahdo hal meel bay wada degaane madaxweynuhu isagoo dan kale markaas uu riixidaa keenay saaxiibaday markay hawshii dhammaatay jawaab lagama helina nin waliba wuu dhoofay ilaa waa la heshiiskii waa la gaaray maalintii aan tegay kismaayo 3 maalmood kadib waxaan furay shirkii golaha baarlamaanka ee heer dowlad goboleed furitaankii shirkaan kaga hadlay mowqifkayga sida wax loo qaybiyey aragtida aan qabo taasay ahayd waxay ku salaysnay waan ka hadlay waxaan xalka u arkayey siday wax u jireen qaybinta la qaybiyey iyo inuu madaxweynuhu lahaa ku tagrifalkeeda iyo riixideeda waana la ogaa waana hadal duuban oo yaallu ah maana ka helin wax jawaaba waxa nagu soo noqday ma jiro halkaa iyadoo taagan tahay waxaan muddo 4 bilooda ku baaqaynay iyadoo markaa 3 qodob oo ka mid ahaa qodobadii laga hadlayey doodoodu soo noqotay oo ka mid ahayd guddiyadii la soo saaray oo laga cabanayey musharaxiintu ay ka cabanayeen oo lalahaa waxaa ka buuxa nabad sugid iyo shaqaalo dowladeed oo ay ku jirtay in arrinta somalilan iyo xalkeeda la helo oo ay ka mid ahayd arrinta gobolka gado oo markaa ciidana lagu daabulayay caqabadana ay jirtay waxaan marar badan beesha caalamkana u gudbinay dowladda soomaaliyeedna kala hadalay waxa aan ka hadlaynaa waa ummad iyo masiirkeed shir ha la isugu yimaado ha laga wada hadlo si loo hadliyo qodobadan aan ka hadlayno intaas oo bilood lagama jiro waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo 2016 waxaa jiray bilaha qaarkood oo hal bil shirar la isugu imanaya 2 goor si xal looga gaadho masale yar oo markaa soo baxday oo khilaaf keentay saddexdan arrin oo gobolka gadatiisu ciidamo lagu daabulayo dagaal la abaabulayo xuduudo la xidhayo dhibaato la abuurayo ay tahay wax ka sii weyn iska daa in doorasho xaalad ka sii adag lagu jiro waxaa dowladdii mas-uuliyiintii dowladda federaalka ay qaadan waayeen intii shir la isugu yimaado in xal laga gaadho ama loo yimaadaan ama aan u tagno ama laisu yimaado waxaan fursad ka helay garoowe shirkii ay qabatay heritage kaasoo aanu isugu nimid madaxdii qaranka marka laga soo tago madaxweynaha xafiiskiisa sababta ra-iisul wasaarahana waa laga joogay iyo 2 state oo ahaa hirshabeelle iyo koonfur galbeed inta kale meeshaanu ku sugnay dood dheer kadib oo labada aqal guddoonkoodii ay joogeen waxaa la yidhi maxaa xala waxaanu qaadanay jubbaland oon tanaasul ku samaynay war arrinta gobolka gado waa caqabad taagan caqabaddaa waxaan u baahannahay in laga gudbo si looga gudbo waddankuna uu doorasho u galo khalkhal kalena uuna u sii gelin waxaa muhiim noqotay oo aanu soo jeedinay arrinta gobolka gado in xalkeeda guddi loo saaro wakti muddo ay noqoto la cayimo laga shaqeeyo arrinta garbaharey iyo doorashadana si waddanka doorashadu uga dhacdo firaaqna uuna u soo bixin oo madaxweynaha maanta halka maalin u hadhay iyo sharci darrada waddanku uu ku dhacayena ayna u imanin inaan magaalada garbaharey maamulkeedii guddoomiyihii degmada iyo gobolka iyo boolis la keeno jubbaland oo maamulka la shaqeeya iyo amisom booliis dowladda ay soo wareejiso gobolka intiisa kalena laga qaado guddiyo iyo marxalado lagu gaarsiin karo dib u heshiisiin tallaabadaa la qaado oo dib u heshiisiintaas weliba ay keenayso
dadkii reegado ee maamuladii ku jiray labada dhinacba in la isku keeno la heshiisiiyo maamul ka kooban dadkii oo dhan iyadoo aanaan odhanaynin hebel xagganuu jira iyo xagganuu jira inaan maamul isku dhafan aan u samayno ciidankana wixii dheeraad ku ahay markaas gado ama daawo meel kaleo banaankaa looga keenay ama jubbaland gudaheeda ha noqoto ama xamar iyo dowladda federaalka ha noqotee inaan labadaba intii laga celiyo dadkii ciidankii la iska hor keenay dowladdu ay dhibaatada u geysatay aan isu keenno la isku dhafo la walaaleeyo wixii dhexdooda la dhigayna aan baajino ka dacna sidaas maamulkii lagu soo celiyo iyadoo cid walba laga tixgelinayo axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug arrintaasaan u soo diray oo aanu siinay kama hadlaya hadda jawaabihii soo baxay waxay ahaayeen kabacdi intaas waxaa dhacay iyadoo weli uu baaqi iyo hadalkii taagan yahay inaanu ka hadalno oo laga hadlo caqabadda xuduudka ka jirta iyo dagaalka dhacaya iyo ciidanka isku dhaca ka iman karaya iyo ciidan inuu shabaab iyo u dhexeeyo ciidan kale oo cadow ciidankii la isaga dhigay inayna socon karayn si kontarool la-aana markaa inuu dagaal uga dhacay beled xaawo in ka badan 70 qof ay ku dhimatay in ka badan intaas laga qabtay kuwa dhaawaca lagu tuntay kuwa la dhaawac tiray laga dhigay inay yihiin wiilashii shalay dhufayska ku wada jiray nimankii jarmalkii iyo naazigii iyo dowladihii kale ee isbaaysigii kale ee ku dagaalamaya dagaalkii labaad sidoodii oo kale in loola dhaqmo oo ciidankii soomaaliyeed iyo dowladnimadii iyo waxay dowladdu sheeganaysa meesha ay ku baabaaday intaasoo culayso kadib oo aan sheegnay oo loo arkay weliba lagu yidhi ciidankani waa kenyaan kuwanna waxay difaacayaan xuduuddii dalka kenya oo kenya waddanka kusoo duushay waxaa aada su-aal cajiiba lagu qoslahay in ka badan 700 kilomitr bay kenya iyo soomaaliya xuduuda leeyihin 5 kilomitr waa number aada kilomitr aada u yar in kenya laga difaacayaa la yidhaahdo xuduudka intaa leegna 42 goobood ay ku sugan yihiin ciidanka kenya gudaha soomaaliya in ku dhow 3800 askarina ay ka joogaan xuduudka intaa leega kalena uu bannaan yahay in la yidhaahdo ciidankani wuxuu difaacayaa oo diyaaradaha maalinba loogu soo daldalayaa 5 kilomitr buu kenya ka difaacayaa maamulka jubbaland waa dabadhilf axmedooba jaajuus buu yahayo kanuu noqonayaa waxaan taariikhda xataa soomaaliya hore u soo maray intaasoo dhan oo dhacday kadib dagaalkaas waxay noqotay in la isugu yimaado cadaadis badan kadib inaan ogolaano inaan sii dayno guddigii kuna baaqna shir in la qabto waxaan sii dayna guddigii oo cabashada daraaddeed markii hore aan u gelinay hakadaan u gelinay sii daynta guddidaa iyo shirkan ku baaqnaa waxay keentay in shir la isugu yimaado samareeb iyadoo aanu annagu ku baaqnay muqdisho sababtoo annagoo doonayna inuu noqdo shir ballaaran international community-ga axsaabta dadka danaynaya kulligood in la wada xaliyo sababtoo ah kuwa mucaaradka iyo musharaxiinta laftooda xaq waxay u leeyihiin tabashadooda in la dhegeysto laakiin in aan meel kale intaan u soo baxno la yidhaahdo inagu aan isku koobnaana waxaan ka doorbidaynay meel agsi loo wada leeyahy iyadoo marka aniga culays ay igu ahayd oo marka samareeb iyo la yidhahdo muqdisho ay tan ii fiican tahay amni ahaan iyo nolol ahaan intaba oo culayska aan muqdisho ku dareemay aana ku dareemayn haddana waxaan u qaadanay riskiga waxay ahayd inaan la xaliyo guud ahaan cidda wax tabanayso oo dhan intaa ka bacdi waxaanu nimid samareeb 4 shirkii ugu horreysaan galay madaxweynuhu wuxuu yidhi jubbaland iyo puntland baa shirka soo dalbaday ee iyagu ha sheegeen waxa laga wada hadlayo yacnii maba aha nin ay wax ka maqnaayeen ma ahay nin madaxweyne oo mas-uuliyad saarayd ma ahay nin madaxweyne oo caqabada taagan iyo waddanku meeshu ku socdo garanayay waxaana kaba sii cajiibsan madaxweynuhu markuu imanayay inuu ku baaqay shirkaa inuu tegayo 5 bishana baarlamaanka labada aqal uu la kulmayo waa waxaad garanayso dalab inay leedahay marka aanu nimid hadalkii aan bilownay waxaan ku nihi madaxweynehu haddii annaga aada naga sugaysay 3dan caqabadood baa taagan oo xal u baahan in laga gaadho waddankii doorashu u baahan yahay waxaa keliya broseyskan uu kusii socon karaay waa xal siyaasadeed in la gaadho haddaan xal siyaasadeed la gaadhin maanta baarlamaanka sharcigiisu uu dhacsan yahay waktigiisa wuu dhammaaday madaxtooyada waktigii intanaa oo dhiman waxay ku jiri karaan oo keliya political agreement in la gaadho
sababta waddanku waa federal steydyadana siyaasaddii waddanka matalaya ra-iisul wasaarihii baa jooga waxaa intaa ka dambeeya caqabad baa imanaysa maanta aynu gaarnay heshiis saddexdii qodobna aan ka wada hadalno saddexdii qodob waxaa la yidhi ha laga hadlo guddi ha loo saaro aniga oo ah madaxweynaha jubbaland guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo ra-iisul wasaarahoo goobjoog noo ahaa waxaa la yidhi waxaad ka soo tala bixisaan labadii qodob ee kale arrinta ku saabsan somalilan iyo cabashada ka jirta iyo arrinta ku saabsan guddiyada doorashooyinka iyo caqabadihii laga qabay waxay noqotay inaan khadka soo gelino oo aan isugu aan la hadlo guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan ku nidhaahno niman yahow odayaal baa tihiin mas-uuliyiin baa tihiin dowladda federaalka ah axzaab mucaarad kulli intaad ka baxdaan idinku dadkaad mas-uulka ka tihiin xalkooda ka shaqeeya guddiyadooda doorashadu nooca u dhacayso isu taga go-aanna na soo siiya wixii intaa ka dambeeyana go-aankaad soo gudbisaan waxaa idinla wadaagi doona maamulkeeda yeelan doona ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya tii kalena aanu talo ka soo bixinay oo aanu keennay in la qaato in laga saaro dhammaan wixii cabasha ay ka jirto ama ha noqoto ciidamada wixii ay guddiyada ku jira ama ha noqoto mataqaanaa shaqaalaha dowladda ee rayidka ah ama ha noqoto ciddii kale caqabad tabasha ay ka jirto in laga saaro oo dad lagu qanci karayo ay noqdaan dadka la geynayo meesha ee guddiyada lagu bedelayo arrinta jubbaland waxaa loo xil saaray 4 madaxweyne puntland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxay soo jeediyeen qorshe ah in arrinta gedo guddi 4 dowladood ka kooban oo wasiiraha ay galaan laba lagasi muddo cayiman dib u heshiisiin gobolka geda ay ka sameeyaan arrinta ku saabsan garbaharre iyo doorashadu meesha ay ka dhacaysana inaan maamulkii u dirno guddidiina la geeyo ciidan amisom booliisana la geeyo doorashaduna sidaa ay kaga qabsoonto waxay yidhaahdeen markaa adigu tala dib ugu noqo guddidaadii iyo dadkii kula socday la tasho sidaa ha la yeelo waayahay baan ku idhi talaan soo gaadhnay halkanaan nimid waxaan u imid mas-uuliyiintii kale oo guddoomiya gobol ka mid yahay oo wasiiradii ka mid yihiin waxaan idhi arrintaana jirta maxaa xala in guddoomiyaha gobolka la iska daayo guddoomiyihii degmada la qaato ciidankii aan geyno oo amisom booliis ay tagto guddidii loo diro sidaa la yeelo intaas aan u gudbiyey saaxiibaday haddana intaan meesha joogna shirar la galay doodo badan baa la soo celiyey shirar badan baa la isku noqnoqday mar walba markaa madaxweynuhu wuxuu ka hadlayey arrinta gobolka gedo jubbaland roolka yeelan karta wuxuu noqon karaa oo keliya inay guddiga doorashada soo dirto guddiga doorashada hadday noqotana dee waxaa meesha yaalla haddaan guddoomiyihii degmada iyo gobolka oo labaduba reer garbahareeya oo ka soo jeeda la yidhi haddii madaxweynuhu intuu abaabul sameeyey waa la dhagax tuurayaa lama ogola oo ma tegi karaan ma waxaan u diri karaa guddi doorasho oo soomaali ka kooban oo soomaali qabaa'il kala duwana oo laga yaabo reer garbaharey inaan cidibo kaga jirin intaan u diro miyay noqon karaan inay iyagu ka shaqeeyaan oo guddidu ayna lahayn maamul la shaqaysa sababtoo guddidani bulsho rayad bay la maamultamayaan waxaa lala dhaqmayaa maamul waxaa lala dhaqmayaa dhaqan waxaa lala tacaamulayaa dhalinyaro intaasoo dhan marka haddaan jirin maamul wixii u dhexeeyahay guddidu waxama qaban karayso haddiise iyagii aan la ogolayn guddoomiyihii iyo gobolka iyo degmada ma waxaa tegi karaya markaa guddi kooban oo soomaali ka kooban oo iyagu magaaladii wax ka qaban karaya doodaasi markay dheeraatay kabacdi waxaa isku noqdeen nimankii madaxweyneyaasha ahaa ee dowlad goboleedyada ee 4 ahaa iyo waxay soo jeediyeen haddana iyadoo markaa aan ogolaanay guddoomiyaha gobolka intiiba la reebo guddoomiyaha degmada iyo in la qaado intana ay marto in talo ah axmedow guddoomiyihii u kaadi degmada waxaan rabnaa guddi inaan u dira garbaharey guddidaasi inay ka soo shaqeeyaan in ay dadka la kulmaan dib u heshiisiin sameeyaan ay soo jeediyaan marka bal qof kale oo aan hadda guddoomiyaha jooga ahayn
ay soo barboos gareeyaan oo la yidhaha qofkana dadkii isku raacsan yahay waxaan rabnaa guddoomiyaha degmada inaad qofka jubbaland usoo magacaawdo kabacdina qofkaasi uu noqdo maamulkii jiray isaga iyo amnigiisii lagala shaqeeyo amisom booliis la keeno guddidii la geeyo sidaa ay ku shaqayso warka laygu soo celiyey waxay madaxweynuhu inuu yidhi maya haddii jubbaland ay magacaabaysaba guddida ha soo jeediyeen odayaasha ha soo jeediyeen haddii magacaabisba jubbaland ay ku leedahay ma aqbalayo oo dhibaataa dhacaysa ma kari karayo markaa anigu guddi inaan khatar geliyo laleeyahay guddoomiyihii ay la shaqaynaysa haddaan magacaabo dhib baa ku imanaya waxaan isku daynay wax kasta oo tanaasul oon samayn karra inaan samayno waxaan soo jeedinay oo kale haddii ay sidan tahay arrinta doorashada bal intii loo kaadiyo dib u heshiin ha la galo gobolka gedo oo dhan ha laga gado garbaari ha laga bilaabo ciidamadii ha laysku dhafo maamuladii ha lasoo waxeeyo gobolkii ha lagu soo celiyo jubbaland gacanteeda kabacdina doorashadii inta brosesska kale uu socday gaadhaysahay ha la qabto arrintaa iyadaa madaxweynuhu uu ka goos qabsaday waxaan rabaa inaan idinaa dagaal baa jiro wiilal baa dhimanaya mushkilad baa taagan oo dhib baa jira waxaan madaxweynaha u sheegay madaxweynuhu anigu kuraasta masharax ma yihi dhan kursi kabelihi laakiin waxaan rabnaa doorasha inay dhacdo xataa hadday adig kuu soo wada baxaan ood kulli aad u ka shaqaysanayso waa sideeda wax kuu yaalla laakiin hodaan ugu yidhi broseska ka dhexbaxo kaambeynkaaga ku jira intaan waktigaagu kaa dhammaanin waxaan ha kaa dhacdo doorashadu ha dhacda ogolow mayna dhicin intaasoo dhan madaxweynuhu wuxuu ku soo koobay inuu isku koobo sheegasho hal gobol iyo hal degmo oo soomaaliya ka mid a oo degmo ka mida gobolka gedo oo kuraas ay taallo uu yidhaahdo aniga unbaa ka talinaya haddaba madaxweynaha waktigiisu dhammaaday see buu soomaaliya u xukumi karayaa hadduu hal degmo sheegtay oo uu yidhi anaa leh oo anaa ka soo jeeda oo reerka yagaa dega oo anaa maamulaya oo doorashadeeda maamulaya oo maamulkeeda iskale suurtagal miyay noqonaysaa madaxweynuhu soomaaliyada kale oo dhan inuu isagu mas-uul ka noqdo oo uu yidhaahdo anaa soomaaliya madaxweyne ka ah deegaan iyo leebalka intaa leegna inuu ku kooban yahay wax dhici karaya maaha waana arrin aada iyo aada looga xumaado waxaan ku baaqaya waxaan diyaar u ahayn wax kasta oo laloo soo jeediyey waxaan u taagnayn si kasta oo doorasho nabada ay ku dhici karayso waxaan ka xumahay in maanta ciidan soomaaliyeed isku hor fadhiyo oo wiilashaa maanta wax qaban kara ayna jirin waxaan ka xumahay in maalin walba diyaarado rasaas iyo qoryo iyo baabuur wada gobolka geda lagu sii wado lagu daldalayo oo maanta deegaanada intoodii kalena ee jubbaland danab maanta rasaas baa ka taalla ay shabaab kula dagaalamaysa waxaa la yidhi jubbaland weydiista ha idiin soo qaada diyaarad dowladdu uma helaysa kiradeeda s n a baa la yidhi waxba idiinma heli karayno ciidan s n a oo dhoobley isku dilaa maxkamad la yidhi ha loo soo diro dowladdu waxay tiri uma hayno maalin walbana 5 falayd 6 falayd baa tagta oo ka degta oo shaqo ka qabata oo hub geysa oo rasaas geysa dhibaato aada u weyn weeye waxaan diyaar u ahayn oon intaa ka hadlaynin oo meel caalam iyo madaxda soomaaliyeedba kaga hadlaynay war waddankan hala badbaadiyo maanta waxay taagan tahay in madaxweynihii uu ballansaday baarlamaan waktigiisii dhammaaday iyo isaga oo berri waktigiisii ay ka hadhay waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan u sheego waddankan dhibaataha gelinina su-aal baa imanaysa 4 sano madaxweynahaan arkay waddan ma maamulaynina yaa maamulayay xaggeesa waddankaani uu ku socdaa 4 sano kadibna sharciyadda maanta baarlamaan lagula hadlayay iyo waxa la soo saaraya maxay noqonaysaa soomaaliyay dagaal qabiil ma aha dagaal sokeeye ma aha 91 ma aha system iyo dastuur baan leenahay isaga hala ilaaliyo ra-iisul wasaaraa jooga xukuumad ka hertee karaa jiri karta waxay ila tahay in dadka soomaaliyeed si degan iyo beesha caalamkaba waddankan arrintiisa looga fiirsado waxa uu xalay ninka hadlayay magaca dowladda ku hadlayay akhriyayana wax sax ah maynan ahayn inta barobooskay soo jeediyeen madaxduna waa la yaqaanaa inta aan compromise gala iyo tanaasulla waa la yaqaanaa waan ka hadli doonaa markaan kismaayo nabad ku tago haddii ilaahay yidhaahdo taariikh dheer baan ka hadli doonaa doorashadii jubbaland baan ka hadli doonaa 2 sano ka hor oo waddanku dowladdu ay diiday in shir la isugu yimaado yaan ka hadli doonaa aad baad u mahadsantihiin